بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى لون سلامي ولا دمانتين meel kasta oo dunida caleeda aad ka joogtaan salaan diiran ayaan hawada idin soo marinayaa. Waxaan ku faraxsanahay inaan hawada ku kulmay mar kale. Caawa waxaan idin hayaa barnaamij xaqiiqatan aad iyo aad ma aragtay muhiim u ah oo ma aragtay dad badan ka faa'iideysan doonaan sida aan rajeynayo haddii Ilaahay yiraahdo. Anigu iskama keeno programmada ma aragtay malayacni qof wax badan qurbaha joogtay ayaan ahay oo wax badan u soo joogtay marka waxaan jeclahay inaan walaaladay uga faa'iideeyo wax kasta oo ma aragtay ay ka faa'iidi karayaan iyo wax kasta oo aqoonteeda leeyahay ama aan soo arkay marka waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo dhibaato iyo xal waxyaabaha ma aragtay caawa programkan rabo waa wax ku saabsan qoysaska burbura ma aragtay dhinacan maaragtay North America la yiraahdo xilliyadan aynu ku jirno sababaha ay u burburaan waxa keena burburka iyo waxa xalku uu yahay oo uga bixi karaysid dadkan cusub ee ma aragtay hadeer iyo koow caruuraha dhalaya ama caruur yar haysta ee hawshani ku soo food leedahay waaye barnaamijkan waxa igu kalifay inaan hadda idin soo gudbiyo oo wax hadda taagan oo ma aragtay waqtigeedii lagu jiro anigu waxaan ku noolahay Mareykan dadkiina og iyo dadkiina og waad ogtiin laakiin dadkan ogeyn ayaan u sheegayaa waxaan ku noolahay Mareykanka marka waxa dhacda xilliyadan oo kale marka lagu jiro in ma aragtay sanadku waa markuu dhamaanayo oo iska sanadkii waa uu dhamaaday caawa bishu tahay 29 marka waxa dhacda dadku inay buuxsadaan ma aragtay waxaan la yiraahdo tax return-ka lacagaha la soo celiyo sanadka dhamaadkiisa marka anigu waxaan ka hadlayaa qaybta dadka caruuraha leh ee ma aragtay child care-ka ma aragtay tax return-ka la soo celiyo sanadka dhamaadkiisa ayaan ka hadlayaa marka waxa dhacda badanaaba dadkeenu qoysas markoodii hore mabda meel u yaalay ama ma aragtay qorshe ama balaan meel dhigtay ma ahan badanaaba qoysaskeenu waa iska reerba oo yaa ku leh oo waxyaabaha dhibaatada keenaya iyo burburkaba dee taas ayaa ka koow ah dad waxaynu nahay aan isfahansanayn dad ma aragtay waxaynu nahay qofiba meel arrinkiisa uu u wato dadku iskuma jiraan dad wanaagsan oo maasha Allah oo si fiican u dhaqma ayaa jira laakiin badi ahaan ayaan ka hadlayaa majority-ga marka waxa dhacda marka la buuxsado sanadka dhamaadkiisii waxa soo noqota lacago caruurta darteed lagu siinayo waayahay caruurtii marka lacagtii lagu siiyo dadkeenu badi ma fahansana waxa wanaagsan in su'aal la isweydiiyo lacagtani maxay u soo noqotay yaa leh sababta lagu siiyeyse maxay tahay laysan weydiiyo marka lacagtan maadaama uu caruurta darteed lagu soo celiyay sanadka dhamaadkiisii waxa wanaagsan in lacagtan iyada ah caruurta loogu talagalo caruurta berito way korayaan waxay u baahanayaan gaari bay u baahanayaan waxay u baahanayaan jaamacad inay tagaan bay u baahanayaan caruurtu ma wada ahan caruur ma aragtay isku garasho iyo isku caqli ma wada ahan caruuru way kala duwan yihiin ilmo ma aragtay ama B keenaya oo hadhow isagoo is anfacaya ma caruurtu ma wada noqonayso kuwa u baahan in la caawiyo oo caawimaadkaaga baahan marka iyadoo arrinkaasi jirto dadkeenu kuma fakaraan yacni heerkaaba malaha ma gaarsiisana waxaa dhacda aabihiina qorsho wataa hooyadiina qorshe wadataa aabaha qorsho wato waxa weeyaan sanadku markuu dhamaado xilligan oo kale lacagtii ay soo noqoto ayuu wuxuu rabaa inuu Afrika tago uu ku soo guursado ma aragtay gabadh uu soo lugooyo sooma xaqiiqatan rag badan baa saa sameeya oo ma aragtay u dhaqma anigu wax badan ayaan ogoon u soo joogay arrigan isaga ah ninka wuxuu ku talagalayaa inuu sanad kasta uu sii socdo uu lacagtii qarash gareeyo uu naaga uu ku soo guursado iyo hawlo iyo bahalkii uu galo hooyadiina waxay ku mashquulaysaa daah iyo ma aragtay iyo roog iyo sariir iyo alaab iyo wax malayacni oo aan waxba tareenin
marka hooyadeena arrinkaas u yaala aabihiina arrinkaas u yaala laysma oga markay lacagtii iska soo noqoto madaxa la isla gelayaa qoysas badan ayaa ku burburay oo ku dhamaaday oo ma aragtay meel xun iyo tii dheerayd ay ka dhex dhacday marka maadaama dhibaatada aan sheegay programkan ku bilaabay dhibaatadaas taas weeyaan ka hadlayo waayahay dhibaatada maadaama way jirto xalku muxuu yahay xalku waxa weeye xaqiiqatan in marka hore dadku ay yihiin dad isku mowqif ah dad isku qorsho ah waa inay yihiin dadku waa inay leeyihiin balaan iyo qorsho gaaro iyaga u yaala oo reerkooda ay ku dhaqmaan taasi waa koow oo taas haddayn jirin dee dhibaata imanaysa marka waa in mowqifkaas uu idun yaallo lagu socdo taa waxaa soo xigta in ma aragtay caruurtan lagu fakaro oo xaqooda la marsiiyo ilmihii markay lacagtii soo noqoto ha dhowto ayay berito wax kuu taraysaa markaa lacagtii ilmihii meel u dhig si berito aada ugu badbaadid beritaadan u baahanayn dee inaad gashid beritaadan u baahanayn inaad boodboodid beritaadan u baahanayn farta inaad dhexda ka qaniintid oo tidhahda alla xaggeen wax ka qabtaa markuu ilmihii koro oo qarash loo baahdo markaa sidaas ayan kugu dhicin waxaan la hadlayaa qoysaskan cusub ee caruuraha yaryar leh ama haddeer iyo wixii kasii dambeeya dadka isguursan doona inay xisaabta kusii darsadaan marka hore qorshe adag yeesha bacdayna wixii sidii ay tahay ha loo waxeeyo maaha in lacagtii sanad kasta la burburiyo oo sanad kasta la baabi'iyo beritan waxba aadan ka haynin wax qurux badan maahan marka saasii ayga tala ah waxaan rajaynayaa in ma aragtay aad ka faa'iidi doontaan fadlan fiidiyoyada aan idin soo gudbiyo waxaan usoo gudbiyaa inaad ma aragtay aad ka faa'idaan inay ma aragtay ay waxaan rajaynayaa inaad yacni aad ka heshaan inaad ma aragtay marka waxaan rajaynayaa aad hadduu ilaahay idmo aydan iga ilaawin inaad ma aragtay aad itustaan ma aragtay dhiirigelin hadduu ilaahay idmo taasi waa codsi wiilasha badan ee idaawada iyo hablaha badan ee idaawada aad baan idin salaamayaa intaan ku kulmi doono programkan ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu